gaadhaya 150 kilomitir in xooga TPLF ay gudaha u galeen dalka Eritrea isla markaana caasimada haatan dalkaasi laga dareemayo barakac iyo waliba in dadku haatan iskaga qaxaan oo u qaxaan dhanka wadanka ay dawladda timid booliiskii galay dukumeentiyada wixii oo dhan la rartay waa hawshaas hadda dhacday hal picture bay tusaysaa qofku markii uu fashilmo oo fariintiisu shacabka ay ka gadmi weydo in uu adeegsado fariin kale oo qori haysanin oo dhaqaale haysanin oo kaligiiska bayhoof oo meel taagan hadalkiisa kaliya inay dawladdaasi u adkeysan weydo waxayna tusaysaa capacity-ga dadka waxaan wanaagsan qaarta wada nagala socotay meel walba joogtaan iyo si walba aad maqlaysaan ku soo dhawaada war waxaan daliyo dibadba idinka hayno oo halkan idinku soo gudbin doona hadii ay yiraahdo qodobada wararkeena ugu doorroona waxa kamida xaalad adag oo ka taagan magaalada Jigjiga iyo waarsiga xisbiyada mucaaradka iyadoo xisbiga FEB maanta loo dhacay xafiiskiisa isla markaana ciidamada New Boolisku ay gabi ahaanba burburiyeen qalabkii yaalay xafiiska labaadi goobayana gudoomiyaha xisbigaasi waxa dhinaca kale iyadana ka socdo xaalad adag oo ka taagan magaaladaasi ismaandhaaf siyaasadeed oo u dhaxeeya xukuumadda madaxweyne Mustafa Cagjar iyo xisbiyada mucaaradka gudoomiyaha guddiga qabanqaabada shirweynaha qaran ee magaalada Jigjiga la filayay inuu ka dhaco oo shaaciyay in ay dib u dhigeen iyo sababaha dib loogu dhigay ayaan halkan idinkula wadaagi doona dagaalo lagu hoobtay oo ka socda deegaanka Canfarta iyo magaalada Bala oo saaka uu dagaalku ka bilowdo u muuqatay inay gashay gacanta ciidamada Tigreega iyadoo dagaalka la sheegayo inuu u sii faafay ama u sii fidayba magaalooyinka Birhale iyo deegaanada ku xeeran oo caasimada deegaanka Canfarta u jirta in ka yar 90 kilomitir waxaan idin soo gudbin doonaa goobaha rasmiga ee la kala marahayo iyo guulaha labada dhinac ay kala gaadheen ayaan halkan idinkula wadaagi doonaa qowmiyadda Tigreega ayaa lagu bilaabay waarsi ay maamul goboleedyada dalka Itoobiya ay ku bilaabeen iyadoo qowmiyadda Gambela ay maanta xidhay in ka badan 200 oo qof oo rayid ah oo ku sugnaa deegaanadaasi halka dawladda deegaanka Soomaalidana la sheegayba in lagu baadi jiro xubno iyo sidoo kale taba shacabka Tigreega ee ku sugan gabi ahaanba dawladda deegaanka Soomaalida iyo qowmiyadda Oromada waxaana gabi ahaanba ka bilowday gudaha dalka Itoobiya oo waarsi lagu soo qabanayo shacabka iyo dadka rayidka ee qowmiyadda Tigreega kuwaasi oo dawladda federaalku ay go'aan leedahay in ay soo bandhigto ay tiraado waxaan ku soo qabanay dagaaladii ugu dambeeyay ee Tigreega ay la galeen dhinaca kale ra'iisul wasaare Abiy Ahmed oo afka furtay mar labaadna isku dhiibay dawladda Turkiga kana codsaday in laga kaalmeeyo dhinaca diyaaradaha daroonka oo loogsoon yahay in sanad ka hor uu ka soo iibsaday ama Turkiga uu soo siiyay diyaaradaha hadda lagu xasuuqayo deegaanka Tigreega laguna duqeynayo magaalooyinka waaweyn ee deegaanadaasi waxa gabi ahaanba warkeena ku eegi doona xogihii ugu dambeeyay dalka Itoobiya goobaha la kala marayo iyo guulaha labada dhinac ay kala sheeganayaan ayaad warkeena kaga bogon doontaan waxaana studio ay kula sugan saaxiibkay Wacane oo isha ku hayay xaaladihii ugu dambeeyay ee dalka Itoobiya waxaan u soo aad iyo aad bamaadsantahay haddii aynu ku bilowno xaaladda dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya maalmihii ugu dambeeyayba way qasnayd ismaandhaaf siyaasadeed ayaa ka jiray cuburin bay dareemayeen xisbiyada mucaaradka iyo dadka shacabka odayaasha dhaqanka oo shirar iyagana ka soo saaray kuna qabsaday magaalada Jigjiga cabashooyin weyn oo laga qabo madaxweynaha dawladda deegaanka Soomaalida Mustafa Cagjar ayaa jirtay waxa dhinaca kale xukuumadda madaxweyne Mustafa Cagjar ay qabanqaabinaysay shirweyne qaran oo ay sheegtay inay ka soo qayb gali doonaan xisbiyada mucaaradka saamilada siyaasadeed aqoon-yahanka cuqaasha dhalinyarada oo ah shir furan oo looga arinsanayo xaaladda dawladda deegaanka Soomaalida iyo qaabkii loo wajihi lahaa ismaandhaafka siyaasadeedna lagu soo dhameyn lahaa iyadoo taasi ay jirtay mid kamid ah xisbiyada mucaaradka ee dawladda deegaanka Soomaalida oo lagu magacaabo FEB isla markaana uu gudoomiye ka yahay shakhsi dawladda deegaanka Soomaalida aad looga yaqaan lagu magacaabo Sheekh Ibrahim Dheere waxa la sheegay in xafiiskooda maanta ciidamada New Boolisku ay u daateen gabi ahaan xafiiskii alaabti taalay cagta la mariyay isagana lagu baadi goobkiisa lagu jiro oo hadda xaafadiisii laga soo waayay lagana baadi goobahayo gudaha magaalada Jigjiga bal maxay tahay waarsiga uu bilaabay madaxweyne Mustafa Cagjar iyo ciidamada ka amar qaata iyo xaaladda si cakirmaysa ee ka taagan magaalada Jigjiga iyo gabi ahaanba dawladda deegaanka Soomaalida Santago arintani waa arin soo socotay oo maalmihii ugu dambeysayba ka socotay gudaha dawladda deegaanka Soomaalida waxayna ka soo bilaabatay tan iyo xilligii urka al-shabaab ay soo galeen gudaha dawladda deegaanka Soomaalida halkaasi oo taliyaasha ciidamada militariga dalka Itoobiya iyo waliba warbaahinta dalka Itoobiya siyaabo kala duwan loogu weeraray xisbiyada siyaasadda isla markaana mucaaradka ku ah nidaamka haatan ka jira dawladda deegaanka Soomaalida xisbiyadaasi oo lagu sheegay inay yihiinba ama la shaqeeyaanba ururada argagixisada iyo waliba ururka TPLF tan iyo xilligaasi waxaa bilowday madmadow u dhaxeeya
shacbiga Soomaaliyeed meel ay joogaanba andee kuwa duldeegaanka Soomaalida iyo waliba mas'uuliyiinta xisbiyada kala duwan oo ayagu arintaasi gaashaanka u daruray marar badan bayaan kala duwan ka soo saaray arintaasi markay dhacday waxa iyadana madmadow siyaasadeed u soo kala dhaxgalay saraakiisha ciidamada duldeegaanka Soomaalida haday noqoto kuwa booliska kuwa liyu booliska iyo waliba kuwa maleeshiyaadka oo ayagu intooda badan haatan xilalkiiba laga qaaday saraakiisha ugu sarsarisay isla markaana kuwa kale to ogolaaday yeedhinta iyo waliba yani in sida Mustafa Cagjar wax u rabo kuwa u fulin lahaa ayaa haatan la soo magacaabay arintaasi markay dhacdayna waxaa bilowday Pexi iyo cuburin iyo waliba duulaan lagu qaadayo mas'uuliyiinta xisbiyada kuwaasi oo haatan ugu dambeeyay Sheekh Ibrahim oo madaxa xisbiga FEF kaasi oo gabi ahaanba maanta ofiskiisii la burburiyay isla markaana qalabkii yaalay ciidamadu ay qaateen dhanka kale waxa iyadana haatan soo baxaysa in mas'uulkaasi haatan lagu raad joogo oo la raadinayo waxaan ognahay sidoo kale in mas'uuliyiin xisbiga wadanida midnimada iyo sinaanta cadaaladda in haatan mas'uuliyiintiisii ugu sareysay ay haatan ku sugan yihiin wadanka Kenya gaar ahaan magaalada Nairobi oo ay iskaga soo qaxeen caburintii iyo waliba cagajugleyntii uu ku hayay Mustafa Cagjar xisbiyada sida oona lifo kale waan ogeyn ayagana in fadeexada la yaab leh ay la kulmeen oo codad xataa sira uu ka duubay Mustafa Cagjar kuwaasi oo haatan la rabo in ay ka soo qayb galaan shirweynaha uu ku dhawaaqay maamulka ka jira duldeegaanka Soomaalida gaar ahaan Mustafa Cagjar waxaana haatan u dambeysay cuburintaasi waxaaba ka daranba in shirkii ay qaadaceen gabi ahaanba xisbiyadii mucaaradka isla markaana gudoomiyaha gudiga qabanqaabada shirka shirweynaha qaran ee ka dhici lahaa magaalada Jigjiga in maanta uu shaaciyay in 4 toddobaad ay dib u dhigeen maadaama xisbiyadii oo dhanba ay qaadaceen wax ka soo qayb galo halkaasi la waay dhanka kale waxaan ogeysan taago in xisbiyadu la sheegay inaysan taageerayaashooda soo wadan karin in ay imaanayaan oo shirkaasi oo ka soo qayb galayaan oo kelita mas'uuliyiinta ku matala xisbiyadaasi oo dhan يعني مسؤولينta ugu sareysa oo ay kamid ama gudoomiyaha ama ku xigeenka hadba qofkii ka soo qayb gali karo inuu imaanayo dhanka kale waxa la rabay inay ka soo qayb galaan qurba joogta duldeegaanka Soomaalida ka soo jeedo inay tagaan magaalada Jigjiga isla markaana ka qayb galaan shirka ayaguna way diideen markii ay u bogi waayeen nidaamka wax loo wado iyo sidoo kale sida shirka uu ku dhacayo iyo ajandaha shirka oo laftirkiisa aan cadeyn dadka qaar ba waxay sheegayaan in shirkani oo kelita loo leeyahay inay imaadaan mas'uuliyiinta ugu sareyso ama madaxda xisbiga in madaxda xisbiyadaasi xisbiyada kala duwan ee duldeegaanka Soomaalida isla markaana markii ay shirka soo qayb galaan la xiro oo halkaasi xabsi loo taxaabo Santiago arinta kale iyadana jirto waxaan ogeyn in xisbiyada laftirkoodu ay ka hadleen marar badan shidaalka duldeegaanka Soomaalida ceelasha ku yaalo iyo waliba in ay ka hadleen masiirka duldeegaanka Soomaalida ugu horeeyo maadaama wadanka haatan uu burburay oo Ethiopia haatan la sheegay aysan jirin oo Ethiopia qoomiyad isku haysato in duldeegaanka Soomaalida iyo xuduudihiisa iyo sidoo kale ciidankiisa iyo hawshiisa in laga wada tashto oo shirkan uu noqdo shir looga arinsanayo ayaha duldeegaanka Soomaalida laakiin arintaasi gabi ahaanba ma aha ajanduhu oo waxa uu yahay kelita in la difaaco axmaarada iyo waliba canfarta oo dad badan oo Soomaaliyeed qabo arintaasina waa lagu kala duwan yahay ajandaha shirka marka gabi ahaanba maadaama shirka ajandihiisu uu cadeyn oo uu yahay oo kelita madmadow iyo tuhno laga qabo in Mustafa Cagjar sidii marka hore axmaarada iyo canfarta uu taageeriyay isla markaana uu hadaba dhilif ugu ahaa in uu halkaasi ka sii wado madaxda iyo mas'uuliyiinta xisbiyada mucaaradka waa iska diideen waxaana ay sheegeen inaysan marnaba ka qayb galaynin shir ajandihiisu uu yahay in axmaaro daba dhaq loogu noqdo isla markaana kaba qaadnimadii ka socotay duldeegaanka Soomaalida ay halkeedii ka sii socoto waana arinta haatan shirku uu burburay afartaasi isbuuc kelita maahe shirkaasi gabi ahaanba waa kalaabsi garowday oo ma jirto shir la iskugu imaanayo oo xisbiyadu ay ka soo qayb galayaan haddii ay jirto oo arintaasi run ay tahay oo shirkan uu yahay shir xalaala maanta duulaan laguma qaadeen Sheekh Ibrahim Dheere xafiiskiisa isla markaana qalabkii yaalay iyo hantidii taalay maanta ciidamada liyu booliska ma aysan qaateen sidoo kale tana ilaa iyo xilligan kuma aysan raad joogeen wagaag dhinaca kale odayaasha dhaqanka ee gobolka Faafan gaar ahaan waliba magaalada Jigjiga kulamo ayay ku qabsanayeen magaaladaasi ay uga soo horjeedaan xukuumadda madaxweyne Mustafa Cagjar ayna sheegeen in ay madaxtooyada ugu daadan doonaan haddaan sida ugu dhaqsiyaha badan uusan xilka ka degin bal xaggee ku dambeeyeen kacdoonkii shacab ee ay horkacayeen odayaasha dhaqanka ee magaalada Jigjiga
santago horta kacdoonku ma aha oo kelita faafan ayagu banaanka ayay iskeeneen laakiin waxaa jira gobollo badan oo ayagana arintaasi mid lamida haatan ku soo jiro oo rabo inay wadadii ay mareen faafan ee uga soo horjeesadeen nidaamka Mustafa Cagjar inay qaadaan waxaa kamid ah gobolka Shabeelle iyo waliba Afdheer iyo waliba gobolka Liibaan oo ayaguna arintaasi qaban qaabinayo sidaanu ku helayno ila wareediyo naga soo gaarayo arrimaha yani deegaanadaasi marka dowladdeegaanka Soomaalida madaxda ugu sareyso waa ay fashilmeen tan iyo inta dagaalka dalka Ethiopia uu ka qarxay gebi ahaanba ma jirto mas'uul maanta isku yani lagu halayn karo masiirka dowladdeegaanka iyo waliba ummadda ku dhaqan gudaha dowladdeegaanka Soomaalida aad iyo aad baad mahadsantahay haddii aanan intaa ku dhaafno xaaladda dowlad deegaanka Soomaalida ee ka sii daraysa iyo isqaqabsiga iyo muranka ka taagan ee siyaasadeed ee ka jira magaalada Jigjiga dhinaca kaleeto deegaanka Canfarta ayaa saaka dagaal aad u baaxad weyn isla markaana jahooyin badan la ka bilowday kuwaasi oo la sheegay inay soo qaadeen ciidamada Tigreega waxaana dagaalku uu ka bilowday magaalada Abala oo ah magaalo istiraatiiji isla markaana ka tirsan deegaanka Canfarta ahna magaalo aad u weyn oo saxmiyad badan leh isla markaana ay ku nool yihiin shacab aad u tiro badan waxaana la sheegay dagaalkaasi in wali aan lagu kala adkaanin walina uu socdo ayna ku sii fidayaan dagaaladu ayna ku dhow yihiin magaalada Birxaale iyo sidoo kale agagaarkeeda waxaana la sheegay inta badan magaalada Abala inay gacanta u galeen ciidamada Tigreega oo saaka weerar ku soo qaaday magaaladaasi waxaan mar labaad su'aal ka weydiiyay Maxamed Wacane iyo goobaha la kala marayo Wacane mar labaad soo dhawow xagee la kala maraya dagaalkii maanta ka socday magaalada Abala ee deegaanka Canfarta santago aad iyo aad buu mahadsan tahay dagaalo culus ayaa ka socda xuduuda dheer ee deegaanka Canfarta iyo waliba tan Tigreega dagaalada ayaa u dhaxeeyaan ciidamada dawladda federaalka Ethiopia militarigeeda kuwa Eritrea iyo waliba kuwa deegaanka Canfarta ee Liu Poliska gebi ahaanba dagaaladu haatan waxay ka socdaan dhanka Birxaale iyo waliba magaalada Apala oo ah haatan mid lagu kala baxay oo gacan ku haynteedu ay dadka deegaanka sheegayaan in ay si toos ah uga arriminayaan xooga TPLF-ta ciidamada Tigreega waxaan ognahay in tan iyo intii xooga TPLF ay soo jeediyeen nidaamka xabad joojinta isla markaana ay dhaheen dhamaanba waxaan joojinaynaa dagaalka aan kula jirno ciidamada dawladda kuwa Eritrea kuwa Liu Poliska iyo dhinac walba oo dagaal aan kula jirno isbuucyadii aynu soo dhaafnay arintaasi markii dawladda ay ugu jawaabtay ama jawaab ay uga dhigtay duqeymo laga bilaabay magaalada Makale magaalooyinka waaweyn ee guud ahaan deegaanka Tigreega oo ugu horeysa magaalada Adigreed guud ahaan arintaasi markay dhacday xooga TPLF way isa soo geejiyeen waxayna bilaabeen inay dagaalo jahooyin badan ay ku qaadaan ciidamada militariga dalka Ethiopia kuwa Eritrea iyo waliba kuwa dowladdeegaanada dalka Ethiopia waxayna dagaaladu haatan ka bilowdeen gudaha deegaanka Canfarta waxayna Canfarta haatan caasimadeeda u jiraan dagaalka meesha ka socdo wax ka yar 70 kilomitir ilaa 90 kilomitir sida dadku deegaanka ay sheegayaan dhanka kaleeto gobolka Wolo ee deegaanka Axmaaradana gebi ahaanba intiisa badan waxa gacanta ku dhigay xooga TPLF sida ay sheegayaan dadka deegaanka dhanka kaleeto urka Fana oo iyagana ahaa urur si mintidiina oo la dagaalamayay xooga TPLF ayaa haatan u muuqda markii la qabtay taliyahoodii inay si toos ah haatan oo la saftaan ciidamada TPLF-ta santago Bexibaana lagu la kacay dagaalo xooganna waa ay ka socdaan Bexigana inta badan waxaa lagu la kacayaa saraakiisha ciidamada kala duwan ee dalka Ethiopia ku sugan magaalada Bahardar ee xarunta maamulka deegaanka Axmaarada dhanka kaleetana ayadana waxaa soo baxaysa in xooga TPLF dagaaladii ka socday xuduuda deegaanka Tigreega iyo waliba dhanka Eritrea in gebi ahaanba lagu kala baxay oo ciidamadii huwanta halkaasi ku sugnaa gebi ahaanba la riixay oo inta badan ba la sheegayo in dagaaladu ay ka socdaanba gudaha deegaanka aandheha dalka Eritrea waxay dadka deegaanka sheegayaan in yani masaafo gaaraya 150 kilomitir in xooga TPLF ay gudaha u galeen dalka Eritrea isla markaana caasimada haatan dalkaasi laga dareemayo barakac iyo waliba inay dadku haatan iskaga qaxaan oo u qaxaan dhanka wadanka Djibouti dhanka kale Santago waxa ay bilowday waarsi iyo waliba Bexi socday labadii sano u dambeysay
weliba haatan la rabo in gebi ahaanba la ciribtiro qoomiyadda Tigreega meel walbo ay ku sugan yihiin. waxaa soo baxaysa warar sheegaya in qoomiyadda Tigreega dadka u dhashay ku sugnaa yani deegaanka Gambeelaha in la soo aruuriyo isla markaan la isku keenay hal meel, waxaana looga gol leeyahay in ay ciidamada militariga dalka Ethiopia loo gacan geliyo dadkaasi isla markaana laga dhigo in ay ahaayeen ciidamada TDF ta ama ciidamada TPLF ta kuwaasi oo lagu soo qabtay dagaaladii ugu dambeeyayba. arrintaasina Santiago waa ay socotay tan iyo intii uu bilowday wajiga labaad ee dagaalka ka socda dalka Ethiopia, guud ahaan dowladdeegaanada kala duwan ee dalka Ethiopia waa laga soo aruurinaya, waxaana loo gacan gelinayaa ciidamada militariga dalka Ethiopia kuwooda ku sugan furimaha dagaalku ay ka socdaan. haatan waxaad moodaa dagaalkii inuu cuslaaday sidii la moodayena uu iska bedelay ayna ku jabeen ciidamada militariga dalka Eritrea iyo waliba kuwii Ethiopia. haatanna Abiy Ahmed iyo waliba Afwerki waxay qayladaan u dirsadeen xulufadooda kuwaasi oo ay ka codsanayaan in ay kaalmo military ay siiyaan sifo xooga TPLF oo awood iyo carcar hor la soo baxay in ay ku jabiyaan. takaleeto Santiago waxa iyadana fadeexad la yaab la ku noqotay in Abiy Ahmed uu haatan jilbaha u dhigtay madaxweynaha wadanka Turkiga Rajab Tayyip Erdogan, waxaana uu ka codsaday in diyaaradaha TB2ga Bayraktar iyo waliba diyaaradaha qumaatiga u kaco in uu haatan siiyo wadanka Ethiopia sifo loo burburiyo qoomiyadda Tigreega iyo waliba xoogooda dagaalamaya. aad iyo aad baad u mahadsantahay. kaasi wuxuu ahaa wacane oo inala socodsiinayay xaaladihii ugu dambeeyey ee dalka Ethiopia. daawadayaal idinkana waad mahadsantihiin. wararkeena xiga intaan ka gaadhaynana waxaan idinka tegaynaa amaana Allah.